wadriyootaye runtu waa maxay. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر هذا البرنامج كأني كوف سريني ريوينك حلقة عاونة وحلقة ديكوبيا اللبعتنات دي لهيلا حرف السين بين المريني وحين كبلوا بيننا قف مثلا بعد قف كوري وقف دلحيسة أما السائحة وملها صعود الفلوفية أركتدا قف كمسلم كدلحيس كعلى عركو دون كالصعودة دلحيس ما صار تاي مثلا بينه علمي مثلا برهات سنيو أما تاينه الأرزاق رهات سنيو أما كبر راح سنيو طيبات كي أرزاق قد إلهي سبحانه وتعالى أوسيي أرنتاس waxay calaamad u tahay toobada iyo soo noqoshada Ilaahay subhanahu wa ta'ala soo noqonayo ayay calaamad waadixa ay u tahay taata ku xigtaana waxa weeyaan qofka fardaha مثلا saaiska waa qofka fardaha iyo wixii lamid ah tarbiyadeeyo weeyaan qofkaasi aragtidiisu iyo riyada lagu riyoonaya waxay bishaaro u tahay qofka ku riyooday inuu mansib ama jago weyn uu heli doono magac iyo sharafna uu mujtamaciisa ku heli doono ilaahayna subhanahu wa ta'ala rimihiisa uu fudaydin doono waxa uu jecel yahayna qofkaasi waxa inuu heli doono ay calaamad u tahay taa waxayna ugu xigta qofka hadii uu ku riyoodo saaxiran qof sixroolaya ama qof sixir la yimaada sixirkuna sayogtiin buu ma waxay ku lagu taarifiyaa ma khafiya wala tufa sababu waxa qarsoonaada wax sababtiisuna ay qarsoonaatay oo la garanayn ilaahay subhanahu wa ta'ala ay naga badbaadiyay qofka sixroole ku riyooda waxay arrintaas calaamad u tahay qishi khiyaamad iyo fitnad bay arrintaas khiyaamad calaamad u tahay aragtideeduna waa hami iyo qami iyo fitno iyo mu'aamarad bay calaamad u tahay laakiin hadii aad aragtidin aad sixriga iyo waxa aad ka sii jeesatay ama aad shaqadii uu sameeyay aad ka hor joogsatay ama aad warqad aad gubtay مثلا ba wixii lagu dhiibayo kale aad gubtay marka qofkaasi waxa ay cadaanaysaa inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala rumeeyay amaana Ilaahay subhanahu wa ta'ala u galiyay walqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u inma sana'u kaydu sahir wala yuflihu as-sahir haythu ata ta waxayna ugu xigtaa baashi saaqiyada yiraahdaan biyaha waraabisa مثلا ببيعها وكلا بيها وكلا قيبسة أما ورابسة بيها قيمتي دور كعيارته بيحرك ما هو بيحرك مركا ملا يديره وكلا للسمعية وملا عاصمة مثلا بير والباقي بيا معينة أي سينيسو على أدي بيها سمركا يهين بيو الصعوبة وميل قرين وعقارة والصعوبة تاسوا ساقد هذا هو تذكر صوته وأحد كم التحي أدي بيها سي أي روكا جاي صعدنا وأرساقد الله سبحانه وتعالى كسينيو بيها سديهم بيها نظيفة حين أو أسكت يد بعته وتا تاسوا ابتلو إلهي سبحانه وتعالى خذ بلادك وكو ابتلينيو مركا إلهي سبحانه وتعالى هذه ما يسد هذا ضد بعته كجت تثبت حديد وياه تاو حين نقول حكته تصبح أما باشا لو تصبح صدق تصبحا يرى إسلامي وضياش أنت بدنا استعمالان إنك سيفرغ بك فائدة بديهين وما نتقيامها مستنطقاتهين لا أي هضليان يعني كهالله إلى هذا وأنا قلت تصبح سين شرعية وحاس أي كبسي ولا سنتين تصبح لكن هذا نقف في تصبح كل يوم معي علامة التعي تصبح هو أدوات وأداة وحوية وشيء أما هو معي هذي وح مثلا بإلهي سبحانه وتعالى لقول حصة aragtida marka tusbaxa riyada lagu arkaa waa risq marka ama waa zawjid wanaagsan oo saalixa oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala kugu asturo ama waa arsaaqad xoolo iyo arsaaqad Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo qofka bini aadanka kadalika u siiyo taa waxay nagu xigtaa sijaadad ama qatifadan dhulka la dhigo ama sijaadadaha dhulka la dhigo kuwa lagu tukada ama kuwa kale guriga iska yaala ee qatifadaha lagu qurxiyo guriga sijaadada hadii lagu riyoodo waxay calaamad u tahay riyada waxay lagu fasiraa qofkaasi inuu nolol wanaagsan oo yaani wanaagsan oo qurux badan ku nool yahay inuu nolol bashaashnimo ah iyo farxada nolol liibaan iyo baraar ku sugan tahay inuu qofkaasi ku nool yahay tasalaada hadii qofka banaanka ku riyoodo taasi waxay sheegaysaa qofkaasi inuu hanuunsan yahay qofkaasi inuu taqwo leeyahay qofkaasi inuu najaax iyo yaani gudbin wanaagsan meel wanaagsan u
gudbayo laakiin haddii la arka sijaadadaas iyo waxyaalaha qatiifadahaasi inay jeexjeexan yihiin ama ay gubteen taasi waxay waa digniin la leeyahay waar diintaada sidaa u gubatay intaan aakhiro la tegin diintaada wanaaji diintaada intaan aakhiro la tegin wanaaji oo badbaad ayaa la leeyahay badbaadi diintaada ayaa la leeyahay taa waxay noogu xiga jeelka qofka bini'aadamka haddii ku riyoodo inuu jeel ku jiro jeelku sidaan ognahay adduunyadu waa xaqiir adduunyadu qiimo ma laha qofka mu'minkana adduunyadaaba dee jeel u ah jeel adduunyada u ah iyadoo xaqiira qofka gaalkaana adduunyadu waxay u tahay islaam ahayna adduunyadu janno ayay u tahay oo raaxo ayay u tahay marka aragtida lagu riyoonayo jeelku riyo wanaagsan ma aha ilaa uu ku riyoodo qofku inuu ka baxayo laga saarayo mooyaane laakiin hadduu ku riyoodo inuu jeelka ku jiro albaabadu u xiran yihiin riyo wanaagsan ma aha isagoo ka baxayo mooyaane hadduu markaa ku riyoodo inuu ka baxayo jeelka oo laga saarayo waqtigiisii ku dhammaystay waa raxmad iyo nabadgelyo xagga ilaahay subxaanahu watacaala waxaanay calaamad marmar jeelkaasi uu noqon karaa qofka xanuun ama wuxuu noqon karaa kayd iyo dhibaato dumarka ama xaaskiisa ama dumarkiisu ay ku samaynayaan ayay kadalika ay calaamad u tahay نبي يوسف إنك فضل بضنا باب الدجال قلي ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن إلهي سبحانه وتعالى وناجي يعني إلهي كما شيغاني نبي يوسف إن وحا إلهي سبحانه وتعالى وناجي إذا أخرجني من السجن وقته إلهي سبحانه وتعالى شيخي يقصو صاري إذا كان ميهي مشاهدة قليلة إذا كاني إيا مركي إلهي سبحانه وتعالى بعد مركي كدب دي شيطانك وإن أنا جوا رضي دي بعتبضا بحضي ذو كشقي توحي نوحيقا سجائنتا سيارك اللعبه وكلا إلهي سبحانه وتعالى شركي سنة قبل باريه وحويا قف وهمي يوحان شرين يوحان لقرني قف دم الصعود دم عريقي قيساويان ومكا حنون يخساره ومويانا وحكلا قيقا نوعا سلقما فايدو ريال يدنا ريال في عن معها وانا الضرر هي حنون هي هلاك إلهي سبحانه وتعالى اكتساء إلهي جل وعلا هنا قبل باريه وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نقعد إذننا هلاك بيننا أيو إلهي يري وأوكتين بسيار كدباتوين كيسا dhibaato xagga caafimaadka kansar baa laga qaado balaayo dhan baa laga qaadaa dhibaato xagga xoolaha gaasad maalin walba burburinaysaa ayaad maalin walba gubaysaa dhibaato xagga maalan bulshada dhibaato xagga waqtigaad luminayso dhinac walba sigaarka haddii la eego dhibaato ayuu inuu leeyahay isaga iyo shiishada iyo wixii lamida imkana waqtigan xaadirka shiishadaha oo idinka arkay dad Soomaalida waxa loo furtay meelo shiishada lagu cabo oo dhalinyarada dhan la keeno waxa dhici karta xitaa daraaga ama midna waxyaalaha yaryar maxay ahayd midna waxyaalaha uu kamid yahay naasta ama xashiishada kale loogu daro waayo waxa arkaysaa qofkii inaanu doonin shiishada dukaankaas mooyaane inuu xitaa gurigiisa ku cabo ama meel kale ku cabo taas waxay sheegaysaa in wax kale loogu daray marka shiishadaha iyo waxyaalaha la iska ilaaliyo caruurahana in laga ilaaliyo in laga guuro xitaa laga qabo xaafada shiishada laga furay waxa idinka moodaa dadkii ummadaha kale inay Soomaalida dhalinyaradoodii target ka dhigteen oo meesha arkaan inay Soomaalida ku fara badan tahay in had iyo jeer bakhaayada ama laba bakaayadood oo maqha oo shiishada lagu cabo in la sameeyo habeen oo waxaad arkaysaa dhalinyarada Soomaalida rag iyo dumarba oo boqboqda haya oo sankiyaafka ka sii deynaya baasha marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala laga cabsado caruurahana loo daneeyo hal laga fogeeyo waa laga ilaaliyo meelaha dhibaatooyinka iyo dararka uga imanayaan wallahu a'lam taa waxay inoogu xigta hadii Ilaahay ضرور سحاب بينه وحكته سحاب هو بشارة ورب ومدد وقيل حق عرفك الصعوطة والرحمة ربي سبحانه وتعالى وسودكي وهوتي ودن كيني أباره قالي برقي دويد وهذو قيدين دور بلوت كهر وحي أباره قالي أي تذكي مردين أي حوله مردين أي تذكي ميكي كصبحين دريغيدي سو يستاقين وهوتي نباتوين كهرب لآنتا يبي لآنتا نباتوين كاي كينان الحمد لله رب العالمين ومدين ومد والأكسن ورنتي خير كعدي ودقاقضو إلهي سبحانه وتعالى خير بدن وفضيلية بين النهاي واتي مركبة لقرقاري واتي مركبة قدية لسمي واتي مركبة مسأتي في ذا إيميل وبلغ خيري واتي ومدينا العقد سوشرتي واتي إلهي سبحانه وتعالى كبد بهذه يقدمنا ومكي إلهي سبحانه وتعالى رحمة ديسي الروكي سو صدري وإلهي فلقي سبحانه وبحمده مركا ضرورت ورحمة إيه بشارة ويان لكن ضرورتها سادة من السوف والشم ومذو أي تهي وهمي وغمي وعذاب وفتنه وماذا بضم إلهي سبحانه وتعالى وكو هلاقي وهي رأي وحي لمذا marka qofkii daruur arka keligii haraynaysa
oo dadka kale aan hareynin oo keligiis daruustaas ay la socoto hadduu ku riyoodo waa riyo aad u wanaagsan qofkaasi xikmad iyo wisdom iyo khayr iyo wilaayad iyo jagooyin iyo magac ayuu helayaa waxaana ku bishaaraystaa qofka sidaa riyada ku riyooda waa riyo qaali ah inuu qofkaasi saalixiinta uu ka mid yahay insha allahu tacaala كم حين وحية كذلك على ضرورته كذلك ولا لا يعني أنا كبحن وهي علامة الطهي علمك فقهك حكمة الدين تا أي علامة الطهي قف قدومر كا أي كذلك علامة الطهي هذه ضرور مرة بدأ يلا أركو وحين قف كاسي وليه قف تمرة وقبو قف كاسي وحنا كمان أوريالاتو أما المرشد دوانا دين هيدا أي مطركو علامة ويهاي تا وحين وحية سروال كلا حدو سروالكو وحويان وعلامة وياهي قفك الضمر كاهن لباس لكم وانتم لباس لهن بإلهي مركا وحا لغو فسرا توبكا استراد إنو يهي قفك الضمر كا قفك الضمر كا إنو حدي سروال كاسين سروال عصوب يهي تاس مركا نقرسنين وحي عدين قفك كاسين نقرسن دونه قبل بكراء أو قروح بدن أو طيبة ونكسن قفك عديو أركو إنو حدان أيو سروال لكن سروال كاسي سروال دوغا وقديمة ويهي لكن نظيفة تاس وحي عدين قفكو بكراء قرسن ما أيو لكن قف دمرة أو عرملة قفك بدن waxay u yaqaanaan qofka dumarka ah garoob bay u yaqaanaan dadka bari inuu garoob guursanayo laakiin garoob wanaagsan oo tayiba inay tahay maxay yeelay surwaalkii waa surwaal nadiif ah waa surwaal aan cusbayn bimaana bikra maaha laakiin waa surwaal nadiif ah marka waa tayibad weeye qofka taasi qofka arka inuu surwaalku xiran yahay gubanayo taasi waxa weeyaan xaaskiisa ayaa khiyaamo wada ama khaayimada isaguna ma oga قف كعديه وكرياضه إن سروالكيسو أسكت بدن ليهي فهو عاصي وقف عاصية وإله سبحانه وتعالى وعاصي عليه وقف فاحشة سميي إله سبحانه وتعالى هو النقضاء قف كأركا إنه سروالكيسو خليه دad isku soo hortaagay oo isaga kaliya xiriyahay qofkaas waa qof xoolihiisa laga xaaraantinimeeyay xirmaan min almaal wa kullu naas ya'lamun dadkoo dhamina way ogyihiin in qofkaasi laga xoolihiisa aanu khayr badan ka helayn oo ilaahay subhanahu wa ta'ala garab mariyay khayrkeeda oo dhan سراب ذاك الحين سراب هو حنقول ولكيه وحيل هذانه مثلا قف مكو سفريو بيا هرتا دار كيسيد لكن الولي قارين والوليو دبقاليو مقعيس أصيليين عرفنا السراب بين هذان وح قف كريو وحيالها أن لقارقاريني وقف وهمي يو حانشرين يعني واحد دريما ريو كلا إنه قف كتمنين يو لكن قف كاسيان وحا قارين بكا أركتذا وحا والولكا وكلا أركتذيسو لا تضرك ولا تنفعك لباتركو جيس الميسو وحبركو سين ميسو مركا تاسنا واسدا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع بالله سبحانه وتعالى سورة النور آية 9 وشيء ونقول كرتان قفك بنانك ولا ليال أديو كل رياضة إفتين أديو كل رياضة مصدر النور كأ أديو كل رياضة بمعنى رئيس نقطة سراج وحفتينا أما الله يراك له كل رياضة تاسوا النور مجدجا وواهن قف بنانك مجدجا اللي بعتذاك علينيسا مركا أركتي هذا وأركتي هذا ونفسا وحب الشعر والطهي إن قفك علمي بدن وهليو إنه قف كاسي هداية بدن هلايو قف كاسي إنه زوجة صالحة بدن هيسنين وهلايو مركا الله يركا إياه مطب كاسي ونقضى من نور بدن تاسي واحد عادين يسقف كبنانا كي مكانة ديسي منزلة ديسو وإياه مجاهيسو إنه كسر رأيه وكوي هاي قف كي عن الله يركاسي وكنا قسيه وكيري هاي لا يركدي بختيسي هاي عدبتنا يخدم وشدمو عدد كل يوم تطلع بختيسان دبتنا وإلى هذا تاسي واحد عادين يسألمو ويل بقف كاودلايا عدين حاسكي سؤور لهذا هاي ويل أي أودلانية كذلك توحي نوبي إن شاء الله تعالى قف قديو كلون وكل رياضه كلون كا وقيمة فربضن كيس الشيلي لا جريل لو سميي كاسرية سياسية بيقول حبضن تهاي كل ما رياضة ما كلو رياضه وأرساق دي غنيمة الله سبحانه وتعالى قف قسيه كلون كاسية دي آنو نقنن كيرير مويانه الرياضة لقول رياضة كلون كيارياري ريفي عن معها وعادة ويان وخسارة ويان لكن كلون كواوين عادي قال العنين لو تركلين لسوقفته كرياضي ساسوا ريفي عنه أرساقد يخد فربضان أي شيء يسا
marka laakiin hadduu kalluunkaasi kalluun weyn uu yahay waa khayr waa barako waa nicmo xagga ilaahi subxana wataala agtiisa ka socda kalluunkuna waxay calaamad u tahay ama lagu fasiraa marmar kelmadda wanaagsan waxaa lagu fasiraa zawjada iyo xaaska wanaagsan ee naafica ee ilaahi subxana wataala ka cabsanaysa kalluunka haddii uu yahay kalluun milixaysan oo la shiilay sidii aynu sheegnay waxaa marmar lagu fasiraa safar loo safrayo cilmi ee lasoo barto ama saaxiib wanaagsan ama madaxweyne ama qof wanaagsan oo madaxa inuu qofku la saaxiibo uu wax badan ka faa'iidaysto kadalika kalluunka la shiilay malayna dadku bari way u yaqaanaan kalluunka aynu sheegayna waa malayga kalluunkaas la shiilay waxaa kadalika ay noqon kartaa ducaa ilaahay subxaana wataala ama wax ilaahay la baryo ilaahay subxana wataala u ajiibay ama arsaaqad waasica oo ilaahay subxaanahu watacaala qofka bani aadamka uu si fudud uu siiyey qofka bani aadamkii geela kuruska geela kuruska uu geelu leeyahay qofku haddii uu ku riyoodo taasi waxay calaamad u tahay inuu qofkaasi meel sare gaarayo qofkaasi inuu caafimaad ilaahay subxaana watacaala agtiisa ka helayo qofku haddii uu ku riyoodo inuu saaran yahay inuu geela saaran yahay laakiin in yar kadib uu ka dhacay taasi marka waxay calaamad u tahay inuu kuruskaas markuu ka dhaco waxay calaamad u tahay qofkaasi inuu dhimanayo qofka haddii uu ku riyoodo in kuruska hilibkiisa uu cunayo inta badan de waaba faate uu faatkaa uu cunay taasi waxay caddaynaysaa xanuun hayeen ilaahay subxana watacala uu caafimaad ka siinayo haddii qofku ku riyoodo inuu kuruskaa goynayo taasi waa macsi riyada markuu ku jira waa macsi macsidaa ku jira inuu iska ilaaliyo weeyaan intaasaan insha allah taala kuruskan aan kaga baxayaa taa waxaa inoogu xiga saboolka oo kale saboolka ama hadhuurhka oo kale haddii qofka banaadamka hadhuur ama sabuul ku riyooday taasi waxay calaamad u tahay haddii qofka banaadamkii lasoo saaro ama lasoo qadfiyo ama lasoo gooyo waqtigiisii inta aanay gaadhin laakiin haddii waqtigiisii ay gaadhay oo ay bislaatay oo lasoo saaro arrintaasi waa dayib waa riyo wanaagsan waxay sheegaysaa wanaag khayr fara badan bay sheegaysaa si guudna aragtida hadhuurhka oo kale waa aragti wanaagsan oo in lagu riyooda riyo fiican weeyaan kulleyba inta badan malaa beeraleyda ku riyoota waa riyo aad iyo aad iyo aad u wanaagsan haddii markaa hadhuurkaa lasoo goynayo ama lasoo saarayo iyadoo aanay waqtigiisii gaadhin waqtigii loogu talagalay aanay gaadhin taasi geeri bay sheegaysaa qofka sidaa sameeyey goynaya iyadoona waqtigiisii gaadhin ay ahayd waqtigii ay bislaatay iyadoo aanay ahayn haddii uu qofku ku riyoodo inuu goynayo waa geeridiisii baa qofka kaa soo dhow marka waxaa waajiba inuu camalka saalixa badsado waa aakhira u diyaargaroobo mar walbana waynu guddigeen aakhira u diyaargaroowno ama riyo ama riyoonin in aakhira loo diyaargaroobo oo camal saalixa lala yimaado oo ilaahay subxaanahu watacaala laga cabsado waa arrin marnaba aan bani aadamku aanu ka maarmayn haddii qofka banaadamkii uu siwaar waa gacanta la xidhay ama dahabka dadka jijin bay dadka bari u yaqaanaan wuxuu doono macdantaas laga isticmaalay ha noqdo ama dahab ha noqoto ama wax kale ha noqoto haddii nin uu gacantiisa ku xidhan yahay arrintaasi waa ithmi waa arrin xaaraana qofkaasi khalad buu ku jira inuu ka noqdo weeyaan haddii arrintaasi ay fido tahay waa xoolo waa cilmi waa sheegaysa qofkaasi inuu cilmi iyo xoolo fara badan uu helayo iyo inuu qofkaasi qof multazim oo ilaahay subxana watacaala ka cabsanaya uu yahay haddii markaa bir iyo naxaas iyo wixii lamida ay tahay taasi waxay sheegaysaa qofkaasi inuu fuqri iyo diiqad uu ku nool yahay haddii ay gacanta iyo jijiintaasi ay qof dumar ay xiran tahay qofkaasi oo dahab ka samaysan tahay qofkaasi ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu siinayaa awlaad iyo hablo fara badan buu ilaahay subxaana watacaala siinayaa marka waxay ku yara fasiraan taayay ku yara noqdee qofku gacanta ay xiran tahay haddii ay dahab ka samaysan tahayna ilaahay subxana watacaala wiilal buu siinayaa haddii ay fiddo ka samaysan tahay ama lacag ka samaysan tahay gacantan ay xiran tahayna ilaahay subxana watacaala gabdho ayuu siinayaa عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا تذكر الجنة إلى كورمية طيب قف قبل ذلك هديه السوق ama mool ama suuqa ku dukaano ku riyaado xaaladu maxay tahay suuqu hada jeer wuxuu calaamad u yahay kolba xaalka iyo sida ay xaaladu tahay ma ganacsiga ma laga macaashay miya laga khasaaray beeciyo shiraha adduunyadu saawtii ma lagu fasiraayo adduunyadu waa suuq la soo bandhigay oo beri dhowna la laalaabayo iska dhamaanayso ayaaba adduunyada dangabigeeduba ay tahay marka waxa weeyaan qofka suuqa ku najaxay waa qofka salaadii cibaadada badsada ee xajka iyo khayrka iyo masaajidka iyo khayrka badsada
caadiyan iyo aragtida suuqu tacbiirteedu kolba xaaladaas siday tahay bay tahay marka qofka haddii isagoo suuqa wax iibinaya uu wax macaasho waxa weeye taas waxay caddaynaysaa waxaad mashquulka ku tahay guul baad ka helaysaa xaalka suuq uu yahayna mar walba waa xaaladaadu exactly siday tahay xaal suuqaas haddii been iyo balaayo iyo dhaar iyo mashaakil ay ka jirto waxa weeye noloshaada waxbaa ka siiya haddii barwaaqo iyo arsaaqad iyo khayr iyo waxaas ay ka jiraanna dariiq wanaagsan baad ku taagan tahay halkaa ka wad baa laleeyahay ayib suuqii waxaa inoogu xigay sawaad madow mugdi ayaa inoogu xiga qofka haddii uu mugdi ku riyoodo waa musiibad iyo suu haddii weliba si gaar ahaan wejiga weji madow oo qofku ku riyoodo yowma tabyadu wujuh وتسود وجوه وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم مركا مبدي وجهك لقارك يا مذو وجهك صارني على مدفع عن إلى نقبة بادية أدي مركا مذو قاسي وطوب كان حرنتها يشار كان حرنتها وسارية هي تاسي وحويا مكانت يحوله مقعد هلي دونتو أدي مركا وشركة مذو قاسي وسارية هي وحويا وسوء ووحن حنون أما تشيل أما مروغو haddii markaa lagu siiyo wax madow wuxuu doonaha noqday waxaas wax madow haddii lagu siiyo waxa weeyaan waxaasi waxa weeyaan waa mansib iyo jaah aad heli doonto waxaa muhiima laakiin had iyo jeer waxaa muhiima inuu isla garanaynaa caawa xalqadan in had iyo jeer uu noqdo madowgaasi mid wejiga ka fog wejiga haddii madowgaasi ku dhaco ama wejiga haddii lagu riyoodo madowgaas calaamadaasi runtii calaamad wanaagsan ma aha qof haddii uu suur ama dayr ama xoosh ama dayr ku riyoodo dayrkaasi wuxuu calaamad u yahay ixtiwaaga ilaalinta ayuu daliil u yahay marka waxaanu calaamad u yahay oo lagu fasiraa dhurriyadda qofka bani aadamka ag joogta awlaadda si gaar ahaaneedna awlaadda dhukuurta ah ragga maaha hablaha ama dumarka deyrka xaggiisa dambe jooga marka kolba deyrkaasi siduu yahay ay xaaladda bani aadamkuna kadalika ay tahay فضرب بينهم بسور له باب وإلى سبحانه وتعالى يلي سواك عضي أدوق في الرياضة عضي هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبشاره رالقالين إيا الرحمة إيا خيرة وحويا نفك نبو معاليا وأنو أفقه قرحيا وأفقه مارتي أرتح بوك قاضا مركا أركتي سواك مع عضي قال أركا رياض رقوا أركا وأركتي ولكسانو خيرة لكن عدي وقفك كو عضي ذو حقان عضي جيني عادي قاهي لما عضي الصومالي كالله يقانو أراك مايكي عربتو تراضو عدي وحكا لقوا عضي ريو وخلاف وأنا خلط من أول سنة تاسو على عدد سقف كاسي هديجي السنة دي صحيح إنه كوع وكسي جيدو مركا هاي إسكا إلى اليوم قفك بني آدم كي يديو كريوضو daad du qoriyoodo daad ama biyo qof banaadamka soo rugmaday sidii tsunami oo kale qofka qaaday waxa weeye waa taag aan qofku filayn waa belo qofka banaadamka ku dhaca nasal allah alaafiya laakiin hadii uu kaasi dhul beera ah oo biyaha ama daadkaasi ay ku dhacaan oo dadkuna markaa hadii ay roob iyo khayr helaan sidii bariga dhaweyd la helay taasi waxa weeye waa calaamatul ghawth waa calaamad arsaaqad waasico ilaahay subhanahu wa ta'ala kiisa ka socota laakiin meelaan dhulkiisii hayna hadii biyahaasi ay yimaadaan waa wabaa iyo xanuun iyo baranbar iyo hoog allah inaga badbaadiye قف بلانك هذه السيف تواجر ليس السيف أصدق أنباء من الكتب في حد يحد بين جدي ولا يقول لك كرنيسان متنبأ أيها من الملانية سيف تمرك هذه قف كل يوضو وحوق يقول هذه قف كدومر كهي أور ليلة هاي المحل عليها وذكر ومولود ذكر ويان بريئة هردي مولود كذكر كابا على شعلا يمكن ريوين فربضن با ويل رياضة أي تاي يمكن وقت كان حاضر كابا بوقتنا عبلها هي النمو ضوء سيدو كلا فايدة بديهين فتقول يمكن عبلها يكون فرحان ويكون قبوبان وما شاء الله أرسى قد وضع ووالد كود أوك وبيلتك بيلية وضعك قريها ولسا وضعك خير بدنسية وانت عبلها يمكن نمو ذكا بضن وانت ردن بأوردن يعني ولي بودن كيني بابا إنه سوق حي يعني أمد الصوماليين وحنا نسان يمكن حيكون فرح ضاع وحيكون فرح ضاع عبلها ويويل كفر كدرية فإذا كلا أنو أوليه مجرته إلا من رحم الله تنتهي الله سبحانه وتعالى ونكسنون حريست الشيء معي لكن سعامة وعلم كوا بقول كلمة مستقاشا إن هبلها لغو فرحه ويرسى قد يخيدي قولك قبو يعني قولك قبو أي هذا الشيء قبو لي مادام طيب سيفت مقام حنوني يقف كدوم الكدير ولاد هاي الميت رئيسا إنهم بيت رئيسا أنت سامي سيفت لك قبل حين نفتر كيسا وربنا يسأل كما هنا سين كمان يكون كنا ساعات هذا قف كوريو ساعات وحيوان نرش هذا organize كنا يسأل ونظام سن
arrimahaaguna inay habaysan yihiin bay caddaynaysaa saacaddu haddii ay xumaatay waqtigeedii ka joogsato taasi waxa weeyaan xaaladaadii waxbaasi ka noqday waxaagii habaysnaana ma habaysnay dub isugu noqo xaaladaada eeg saacaddu markaa hadday dee khalkhasho weyaan taasi hadday laakiin saacaddu istaagtay jaq tiraahdo taasi waxay caddaynaysaa qofkii saacadda xidhnaa ama iska lahaa ayaa waqtigiisii soo dhawaaday ama uu dhintay ama dhimanaya saacil bariid postmanka qofka waraaqaha guryaha u qaybiya haddii qofku uu ku riyoodo haddii marka qofkaas waraaqaha qaybinaya ama saacil bariidka ama postmankaasi uu habi yahay uu qoslayo farxayo taasi hay'ad tayiba oo wanaagsan weeyaan akhbaartiisu marka waa akhbaar saara war wanaagsan oo khayr qabo ku soo wada war farxad la marka soo toosiday heli doontaa weeyaan qofka bini'aadamka iyo bilcakas haddii uu ku riyoodo waxaan inta ahayn riyadaasi waa riyaan fiicnayn waqtigii bay qaaday وانا قاعدين وقتي برنامج كامل حلقتنا دميستريني إلهي سبحانه وتعالى خير الدنيا وخير الآخرة والذي كبريا ساسا بسوق بقبيني أبي وراليه يقول هذين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وفي أمان الله. wadriyootay runtu waa maxay